waxaan rabaa inaan marka koowaad aan xasuusino ahmiyadda uu agaasimaha u leeyahay hay'adda si guudna marka la isku soo dardaro in total ay dawladda aad ugu leedihiin maadaama aad arrimaha maamulka aad idinku aad madax ka tihiin waa wadnihii ama qalbigii dawladda ayaad matalaysaan waa meeshii haddii ay xumaatana ay xubnaha kale oo dhan ay xumaanayeen haddii ay wanaagsanaatana ay xubnaha kale oo dhan ay wanaagsanaanayeen waa meeshii noloshu lagu qiyaasayay dee hadday iyadu nooshahay at least nafti ay qofka ku jirto laakiin hadday daqiiqad istaagto ay qofka naftu ka baxaysa halkaas ayaad ugu jirtaan qaranka iyo dawladda aad ugu jirtaan marka muhiim baad u tihiin qaranka mas-uuliyadda marka intaa la eg ayaad xambaarsan tihiin waxaan rabaa marka inaan horta idinka oo mas-uuliyaddaas dareensan inaad meesha soo fadhiisataan oo cid markay timaado maamulka dee dawladda idinka sarreysa ma jirto wasaaraddaad joogtid ama hay-addaad joogtid maamul markay timaado adiga kowka ah marka adigoo mas-uuliyaddaas xambaarsan oo madaxda qaranka u ah oo arrinta intaa la eg mas-uuliyadda intaa la eg mas-uul u ah ayaad meesha fadhidaa dareenkeedu waa inuu jiro marka dadaalkeedii iyo ka fakarkeedii iyo in laga warwaro iyo in loo fakero intaba idinka ayay idin saaran tahay waa mas-uuliyad aada u culus intaas marka laga tago waxyaabaha aan isleeyahay waa muhiim maanta inaynu ka wada hadallo waxaa kow ka ah sidaad ogtihiin xukuumaddu waxaa loo soo igmaday barnaamij ay horgeysay golaha shacabka assignment baa lasoo siiyey xukuumaddu waxay la mid tahay arday assignment la siiyey dee assignmentigii inay kasoo shaqeyso loogu talagalay marka assignment baa layna soo siiyey assignmentigaas fulintiisa ayaad kow ka tihiin dadkii fulinayaad idinku tihiin waa idinka marka programkaas oo xukuumadda oo aad aragteen xukuumadda dan qaran ee 6 qodob ee waaweyn ka kooban ee aad kulligiin aragteen eed gacanta ku haysaan fulintiisa idinkaa laydinka sugaaya shacabka soomaaliyeed idinku idinka fadhiya maalmahan waxaan saxiixaynay commitment sheet waxaan aan dhahnay ama ballanqaadkii ay wasiiradu ay soo saxiixayeen wasiirku soo saxiixayaa laakiin fulinteeda dadkii iska lahaa ee uu wax u soo qaadayay halkan ay fadhiyaan marka hawl aada u adag ayaa idin taalla waa laynaga mashquulinayaa waa la isku dayay in laynaga mashquuliyo hawlo kale madaxa laynoo geliyo mararka qaarkood duruufo kale ay laynagu abuuro laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa la iska rabo oo laynooga fadhiyo oo aan annagana kitaabka qur-aanka gacanta soo gelinay waa fulinta programkaas marka fariinteyda koowaad waxaa weeye almost hadda waxaan maraynaa bil iyo 100 beri waan dhaafnaa maraynaa 4-5 bilood baan sii dhownahay waa inay bilaabato marka maalin walba ay kuugu dhegan tahay ay kuu taallo computerkaaga kugu jirto waxaan maxaa laga qabtay say u socotaa ma la qabtay mise lama qaban wax badan oo aada u badan iyo milestones aada u fara badan oo waaweyn ayaad soo qorteen waanan in badan oo ka mid a markii wasaaradda yar laga reebo waan is hor fadhiisanay waan is aragnay milestoneskaas waxyaabahan iska weydiinayna inta faraha badan waxaa weeye war waxaan wax doable ma yahay avoidable ma yahay ma
qaban kartiin waxaynu isla garanay oo aynu isku ku heshiinay in la qaban karo marka dhawaan yeynaan isugu imaan ma qabsoomin sheeko la yidhaahdo yeynaan isugu imaan waxaan rajaynayaa in arrintaas aad ka howlgashaan oo aad programkaas iyo milestonadaas xaqiijintooda from now on in subax walba iyo habeen walba inay waxa ku yaalla ay waxaas yihiin inaad ogaatid yaan lagu mashquulin meel kale bad kale hawl kale yaan lagu mashquulin waxa ku yaalla meeshaas oo saa wax xaqiijin lahayd marka taas waa qodob aad iyo aad muhiim u ah taas waxay u baahan tahay wax badan in la bedelo ayay u baahan tahay wax intii la iska qoro oo lagu heshiiyo haddana aan fulin waa inay natiijo oo haddana natiijo ka dhalanayn waa inay natiijo ka dhalataa marka waxaan qabaa si ay waxani horta ay u fulo oo si loogu talagalay u fulo waa inaan bedelnaa behavior keenii hore iyo wixii hore sidii aan u dhaqmi jirnay inaan wax ka bedelno waa qasab sidii hore haddaan ku soconno waxba inoo fulmaayo ma dhici karto inuu fulo marka waa inaynu wax ka bedelno habdhaqankeenii hore inaan wax ka bedelno midka ugu horeeyaan rabaa inaan sheego halkaas keliya uma sheegin inta kale idinkaa ku dari doono soo jeedka habeenkii waa mamnuuc agaasime habeenkii oo dhan soo jeeday oo mid siyaasi oo xildhibaana oo ugu talagalay berri oo dhan inuu jiifo habeenkii oo dhan haddana ay soo sheeko kula soo jeedo oo siyaasad ku dhex jiray ilaahay ku dhaarshay subaxdii goor mu soo kacay ma soo kici karo shaqo ma qaban rabo marka behaviorka ugu horeeyeen bedelnay annagu waxaa waaye in subaxdii la shaqeeyo golaha wasiiradu goormay shiri jireen galabtay shiri jireen soo maha haddana goormaa la shiraa 9 subaxnimaa la shiraa maalidood waxaan idhi sida bani aadamka ha loo noolaado oo wax kalaaba laga sameeyey laakiin bani aadamkaa sidaa u nool sida bani aadamka in loo noolaado oo sida bani aadamka in loo shaqeeyaan u baahan sida bani aadamka in loo shaqeeyo ha waa saas way ha laakiin sida bahalka inaan sida waraabaha inaan habeenkiina soo jeedno maalintiina seexdan sax maaha dadku sidaas ma sameeyaan habeenkiina way seexdaan maalintiina way shaqaystaan marka kale aan ku celinaya sida bani aadamka aan u noolaan taasoo dhifan marka taas waa mid yar oo aan rabo un inaan istusino inaynu bedelno behaviorkii jiray inaan wax badan ka bedelno arrimaha oo siyaasadda oo aada foxka loogu yahay oo aan aada dadkeenu uga wada shaqeeyaan waxaan rabaa inaa waxoogaa dib looga soo noqdo oo laga shaqeeyo arrimahan technicalka eed u xilsaaran tahay iyo administration iyo fulinta arrimahaas in la tayeeyo arrimaha xoog la saaro taas in lagu bataan aada iyo aad ayaan jeclaan lahaa oo ay yaraato waxyaabaha kale ee aada looga fikraya inay aada u yaraadaan taas waa qodobka ugu muhiimsanayaan rabo inaan aada ugu wada mashquulna kulligeen oo ina sugaya waa middaas technically wixii aan meeshaas ku heshiinay fulintiisa idinkaa madax u ah idinkaa laydinka rabaa akhyaari qodobka labaad waxaa weeye oo muhiimka ah waa dhibaataa jirta markaan fiirinay in historyga hadda dib markaan waxoogaa ugu yar laabanay waxaa kuu qoran oo lagu leeyahay intaasaa bixin wasaaradda caafimaadka awa wasaaradda caafimaadka ma joogaan ya kulligood ma safrayin wasaaradda dhan may safartay oo ku-xigeenkiisii iyo agaasimayaasha kale iyo wixii awa okay wasaaradda hadda waxaa joogay qof aan joogay environmentiga hadda waxaa joogay qof matala marka idinku ma 10 sharci baad qabtaa anyway
على أي تحال وزارة ديني ماشي فريدة ولا غير ربيع هيد وأيضا بيسال سوق هذا الله بقول مليون أيا نقرأ مركان في إنه wax feasible ah oo dadkeenu ay leeyihiin wallahi waa kan wixii waa kan ma muuqanayaan waxay ku leeyihiin marka 20% ee Soomaalidu ka faa'iideystaa wixii kale laga faa'iideysto marka awoodii farsamo ee laga faa'iideysan lahaa waxaas mas'uuliyadeeda idinka hadan karana wasaaradda kasta waxaa jooga intaasoo khabiir intaasoo la taliyay intaasoo baa jooga maxay qabanayaan haddaynan technically aysan keeni karin in waxaas laga faa'iideysto marka bal inta daraasaysaan oo hoos loogu noqdo maxaa keenay inaan ka faa'iideysan weyno waxaas dib loogu noqdo aan isugu tagno inaan wixii jiray wax ka bedelno haddii ayaga dhinacooda tahay qolada oo لا وحبان السيني واسكع لنا أنا قاعد أروح نوجب هندي الحفيز كان نص الشيء لكن النجا اللي يريد الصومالي بعد سنة يا إن أفلو أو سيد اللي قاعد الشعب كصومالي أي هلان وحي الدنيا ده وطلع كشيء هدي تكنيكال وأفلو وهي مسؤولية إذا كان قاعد يسان هدي إذا سوى شيء أو وحي سهل كان سكف ولا اللي هو مسؤولية إذا كان قاعد يسان هذه أنت نلاص الشيء واحد political واحد نمن أي فلو ويسا مسؤولية أنا قاعد مركب حرب بها إنها تحسن يعني المجلس كدقنا وسيد هذا بقى أي لما عطوا وحاسة الفلو وهاي شيء كذا سوينا المجلس كبحر إذنكو هوش عس إذنك أول حسارا مشاريع سوينا في الشو مركب تروان waxaan rabaa inay khad ahmar inoo noqoto in wax inaga inagu qoran kulligeen oo dalkeena iyo dadkeena ku qoran haddana ayna laga faa'iideysanaynin sideedaba waa inuu khad ahmar inoo noqdo kaas hafriyadiisa ma rabno waa in la inaga tago oo la inagu soo qorin taana intaas ka dhigi lahaa akhyaaray shaqaalaha rayidka la yiraahdo ee madaxda ka tihiin culays badan ka taagan hadda way fiicnaan lahayd inaan systemka galloon fiirino shaqaalaha 5,000 ay inoo qoran hadda ma la geli karaa ii fiiri hadda inta ku jirta ii fiiri inta shaqaale ee hadda ku jirta shaqada bal hala fiiriyo oo rayidka ah numberka haddana sii halkaan aan ka fiirsanayna waxaad ii fiirisaa inta ku jirta iyo inta fasax sharciga ku maqan بس أنت ما سد أجسمها جودة جودة شغالة هنرنا إنه نشيب ما عندك ليه سوا حتى نعم بسم الله الرحمن الرحيم Excellence aad loo mahadsantahay halkan dashboardka waxa ka muuqda waa afar table kan koowaad wuxuu ka hadlayaa totalka guud ee shaqaalaha dowladda ee biometric attendance systemka ku jirta oo xogtooda lagu diiwaangeliyey tirada waa 5,751 qof inta shaqada ku jirta noo sheeg iyo inta fasaxa sharciga ku maqan bas total saakay soo xaadiray oo shaqada ku jirta 1,216 shaqaale okay يا انت فصح اكون مقن صح بقى waxaa maqan oo aan saak soo xaadirin 4,535 shaqaale waxaa fasax ku maqan oo la diiwaangeliyay oo fasax sharci ku maqan oo systemka ugu jira cadaymahoodii 186 qof marka 4,535 oo maqan marka laga jaro 186 fasax sharci ku maqan waxaa soo haraya 4,349 qof هذا ما صنت maxaa idinka muuqda meeshaas iska welfare waaye yani meesha waa caydii la qaadan jiray meeshaas waxaa idinka muuqan waa disaster actually wax adduunka aqbali kara waxaas ma jiro yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya marka yaa mas-uulka ah arrintaas
maxaad u aaminsantihiin agaasimayaasha guud mas-uulka ah wasiir mas-uulka ma aha cid kale mas-uulka ma aha qof kale mas-uulka ma aha you are responsible guys inta haddaan isu sheegi weyne ma ogtahay waa aakhira waa meelaan gelayna lama garanayo marka arrintaa maxaa laga sameynaa waxaan rajaynayaa bisha dambe markaan isu nimaadno meeshaan markii dhaash laga siiyo in wax iska bedelaan qof walba hay-addaadii ku noqo yani waxaad ka soo helaysaan dad lacag qaata oo mushahar qaata oo shaqaalo rayada oo maraykan jira oo ingiriis jira oo carab jira oo nairobi jijiifa oo aan soo shaqo tegin weligood waa ka soo helaysaan marka de saas sax maaha in uu qof $700 iska qaato isagoo maraykan jiifa ama yurub jiifa ama africa jiifa ama gurigiisa iska jiifa oon imaanayn wiil soomaaliyeedna oo 200 qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo carruurtiisa awoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso wax suurtagala maaha aakhire maxaan ku jawaabaynaa wax lagu jawaaba ma laha waa la isweydiinaya labadaas waddankay wada leeyihin way wada dhasheen walaalo waaye waay kani uu sidan u yeelanaa kana waay aada fursadda u siisay kaas waay uu kana sidan ugu dhimanaya imisa jaamiciin oo jaamacada ka soo baxday oo aada wada garanaysaan oo masters degrees oo PhD ah oon shaqo haynin oo fadhisa meesha oo habeenkii aada shaha aan wada cabnaa oo soo fadhina waayaan fursadda u siin lahan hayag walaalayaalow hay-adihii ku noqda eg waxaa la yidhi shaqaalo rayid mar haddii la noqdo laysma taabto marka qofku wuxuu rabo sameynaya waa taqaanaan sida laysu taabto sharcigu wuxuu leeyahay waad garanaysiin aad baa u taqaanaan hay-adihiin iyo wasaaradihii ku noqda from tomorrow waxaa waaye waxaa la rabaa meeshaas inaad xalaalaysan inta kale dee xalaal iyo xaraam dadkan 4 kun dadkaasi hadda xaggee jiraan waxay qaadanayaan ma xalaal baa carruurtooda waxay siinayaan ma xalaal baa ma isweydiiyeen horta xalaal maa carruurtooda waxay siinayaan contract buu galay timekan meeshaas uu kaga tegay Soomaali baa iska leh timekan uu jiifa hadda dadka Soomaaliyeed baa iska leh asagu ma laha wuu gatay waa hore la gatay by the time uu saxiixayay baa ayaa laga iibsaday marka xaraam buu ilmihiisa siinayaa asaguna xaraam buu cunaaya Soomaalida inay fahmaan way musuqa meeshii ka bilaabanaysay ee ugu dambeysay ee ugu horeysay meesha way marka taa waxa waaye waxay la tahay dadka Soomaaliyeedna way la yaabaya laynoguma garaabayo laakiin waxaa saxa inaan mas-uuliyaddaas cidda taqaan cidda le ee la ogyahay waa agaasimayaasha guud ee dowladda iyo maareeyayaasha ee madaxda ee halkan fadhiya ayaa mas-uulka ah arrintaas wax laga qabtaan rabnaa arrinta kale waxaa weeye oon rabo inaan iyadana aan wax yar fariinta ka gaarsiiyo waxaa weeye markaan aragnay wasaaradaha inta faraha badan wasaaradaheena waxyaabo waxaad kala leedihiin hawlaad kala leedihiin wasaarad waliba shaqay leedahay hay-ad waliba shaqay leedahay laakiin waxaa jira arrimo badan oo cross-cutting mararka qaarkood buuqiyaa ka jira waxaan rabnaa in aad ka wada shaqaysaan arrimahaas innaga waxaan dhahay hal body oo dowlad la yidhaahdo xukuumad danqare la yidhahdo kulligan ka shaqeyna waxaan rabnaa way isqa qabsadeen iyo way haystaan iyo wasaarad hala iga jiidatay inta la wada fadhiisto ayaa idinkaa technical ah waxaa la rabaa inaad oo adeedna wasiirka dhahdo wasiir waxayna waa la haystaa wasaarad hebla haysata wasiir waxayna waa la haystaa wasiirka oo dhagala oo xiimaya kii kale ku dhex dhacay ayagoo is dagaalamaya noo imanaya oo mushkilad haysata marka waxaan rabnaa inaad agaasimayaashu saaxiibo yihiin waa saaxiibaad tihiin inaad ka wada fadhiisataan idinka iyo la taliyayaashiina technically inaad wixii u xalisaan oo deedna waxyaabaha cross-cutting ka dhexeeya interagencies
in laga wada shaqeeyo oo qolo waliba waxa ay ku leedahay ka shaqeyso oo la iskaabo dawladdu in iskaabtaa la rabaa dawladdu in iskaabto ayaa la rabaa marka taana waa waxyaabo jirjira oo aan arkay waxaan rabnaa inaan ka baxno oo ka dadaashaan oo idinku mas'uuliyaddaas qaadataan oo hagaajistaan taasna waa idinka rabaa la dagaalanka musuqa oo kii hadda kowkee la dagaalanka musuqa meesha la rabo inay musuqa la dagaalanto waa halkan marka agaasimayaashu idinku aad u mahadsan ha ogolaanin marna ama shaqadaada ku weyn ama waxa rabta samee ama dhib ha kugu dhaco laakiin marna ha ogolaanin musuq maasuq inuu ku mar ha ogolaanin marna ha yeelin sharaf iyo cizi baad ka qaadaysaa marna ha aqbalin musuq ha yeelin ama kor ha kaaga yimaado ama hoos kaaga yimaado musuqa marna ha aqbalin ugu dambaysta waxaan kusoo gabagabeynayaa waa arrinta ku saabsan tiirarka iyo issueska ay ugu horeeyaan siyaasadaha iyo shuruucda iyo habka loo soo bisleeyo inkasta oo shuruucda hadda golaha wasiirada la keenay qaar badan horay looga soo shaqeeyey oo ay xukuumadihii hore ka shaqeeyeen haddana marka la keeno culays badan baan kala kulanaa luuqaday ku qoran yihiin iyo sequencigooda iyo qaabkay u samaysan yihiin iyo professionalismnimada aad dhib badan baa lagala kulmaa marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha lagu hagaajin karo waxaa ka mid a in miitinada technicalka ee tiirarka in la xoojiyo intaa qoladaas la keeno si technically iyadoo in la wada sheergareeyo toosinta iyo akhrinta iyo isku aadinta meeshaas wixii farsama oo dhan meeshaas lagu dhameeyo markii subcommittee golaha wasiirada la keeno wax badan kuma darayaan wasiir wax badan kama fahamsanaba in badan oo ka mid laakiin meesha fahamsan waa halkan marka in la xoojiyo miitinadaas oo issuedaas si fiican loogu soo doodo lagu lafaguro arrimaha muhiimka ah waa laga maarmaan si ayagoo bisil oo dhammaystiran ay noogu yimaadaan waqti badan baan idinka qaatay waxaan runtii baarakeynayaa oo aan ammaanayaa soo dhaweynayaa kulankan waxaan rajeynayaa insha allah inay ka wada tashataan arrimaha muhiimka qaranka u ah wax wanaagsan oo ummadda iyo dalka iyo diinta dan oo ahna idinka soo baxaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqo wanaagsan jazakum allah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu